magaalada Madiina al-Munawwara waxay ka mid tahay magaalooyinka sanad walba si joogto ah ay u soo booqdaan in ka badan 8 milyan oo qof. haddaba magaaladan oo ahayd hoygii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ama goobtii uu soo haajiray rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. magaaladan waxaa ku yaala goobo fara badan oo taariikhi ah sida masjidka nabiga, masjid al-Quba, masjid al-Qiblatayn, masjidka Abu Bakar, masjid al-Qamama, buurta Uhud iyo sidoo kale waxaa ku aasan rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam iyo qaar kamid ah asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. haddaba intii aanu joognay magaalada Madiina waxaanu la kulannay qaar kamid ah culimada maamusha masjidka iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu soo casuumay qayb kamid ah masjidka. masjidka nabiga wuxuu leeyahay qayb lagu kaadayo taariikhda masjidka oo idil waxaana goobtaasi lagu tusay dhalinyaradan Soomaaliyeed sidoo ahaa masjidka waqtigii rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam iyo sida hadda loo balaariyay iyo sidii ay u dhisneed magaalada Madiina waliba waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam goobtii uu ka deganaa magaalada Madiina. Used to be covering some part and other part was uncovered. I only had 3 doors. And one of the doors is for his house, Aisha, his wife Aisha, the door. The other one was between Abu Bakr. Ayyuma Abu Bakr? Abu Bakr and Abu Bakr has the door as well. And that's 3 doors the Muslim used to have. And this is a small place he used to make for the poor companions. They call it Ahlul Sufa. There used to be about 7 poor companions, so he built for them especially at the back of the masjid. And this was the front part of the masjid where the Qibla is, which is covered. And when the Prophet ﷺ and his companions have a lot of techniques how to build, they were requested to the Prophet ﷺ that they build a bigger, wider mosque with stones and everything. But he was too humble. He said, "I'll be pleased. We will tell you what stick to my mud and Arish of Musa, like the house of Musa, like that way." So he didn't want to build like a castle. bandhigaas kadib dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaar kamid ah waalidiintoodii ayaa waxaa loo qaaday dhinaca masjidka Quba iyo buurta Uhud oo ay ku duugan yihiin asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaar kamid ah. haddaba intii aanu goobtaasi ku sugnayn ayaa waxaanu waraysi la yeeshay dhalinyaro iyo waalidiinta qaar kamid ah. Faadimo waxaad soo martay Maka, waxaad soo martay Madiina, maanta waxaad joogtaa Uhud, maxaad dareemaysaa? والله waxaan dareemay inaan dadka adduunka Ilaahay buqcada uu ku nool yahay inaan ugu nasiib wanaagsanahay ama aan ugu ayaan badnahay runta marka la doono because yani meeshan oo kale qof kasta ma yimaado waxa yimaado qof inuu Ilaahay jecel yahay marka nasiib wanaagayga anigu waxaan kamid ahay dadku Ilaahay jecel yahay. waxa kula socday carruurtaadii oo kula yimi oo iyaguna kula cimraystay Maka kula soo maray Madiina kula jooga bal barnaamijkan dhalinyarta waxbarashadooda dumarka wax loo akhriistay kula muuqata wallahi runta marka la doono xamladan aan maanta anigu soo raacay horta Ilaahay fadligiisa ugu yaraan anigu hadarso markii 7aad aan imaado maxaan idhaahdaa Ilaahay fadligiisa xamlada fara badan oo aad u kharash badanna waa soo raacay laakiin runta marka la doono xamladan waxaan dareemayaa inay leedahay waxyaabo gaar ah oo aanan kuwa kale ku soo arkin waxa kamid ah marka ugu horeysa dadkii oo afkii ku wada hadlaya talabaad dadkii oo aad dareemaysid inaad dadkaaga aad joogtid oo aanad qof shisheeya ahayn afkii hooyo oo caruurtii lagula hadlayo talabaad halkan waxa jooga dad khaas ah oo af Ingiriisiga diintiisa wanaagsan dadka ugu macnaynaya oo caruurta yaryar ee midland magaalada Yurub ku soo dhalatay ee aan afka garanaynin af Ingiriisiga xabad iyo xabad ugu sheegaya habeenkiina muxaadarad u dhigaya aroortiina quraan u dhigaya caruurtana sidii caruurtooda ayeen u dhaqaaleeyaan caruur badan baa joogta aan hooyadoodii aabahood la soconin laakiin qolada xamlada leh ayaa aad iyo aad u dhaqaaleysa marka ugu horeysa magacaaga saddexan Hanad Abdulqaadir Usman. Mr. Hanad, bal waxaad iiga warantaa maxaad dareemaysaa? How do you feel? This is a place where you can get lots of benefits and where you can increase your taqwa and you can change your life for better, in a good way. I think that by seeing all these places we can see how we can increase the taqwa and inshallah when we come back to England we'll become better Muslims inshallah. The last question maxaad oran lahayd dhalinyaradii aad kaga timi UK ma inay xaqooda iska joogaan mise inay yimaadaan soo cumreysaan maxaad oran lahayd dhalinyarta xaq kaga timi I advise them to come here in their holidays to spend their time and hopefully they will see all these places that I've seen and they will become better Muslims inshallah.
إمكان أحد وحماري النبي عليه الصلاة والسلام بصحابيه وأنا محن لا إن ماذا إنجليز كم كشوكا وحنقول لها نقول next summer أنا مع عمرنا صوصعتها إن شاء الله ينهالك ما دام dhalinyaradan oo qaarkood si ballaaran ugu faraxsan imaanshaha ay yimaadeen waddankan ayaa weliba waxay qaarkood ka dalbadeen jaamacadda Madiina inay ka bartaan diinta sidoo kale dhalinyaradan waxaa habeenkii casho sharaf u sameeyay culimada masjidka qaar ka mid ah ayagoo weliba goobtaasi lagu guddoonsiiyay kitaabo ku qoran luqadda Ingiriiska welibana loo soo jeediyay muxaadarooyin ku saabsan diinta iyo wanaageeda Nabil Hassan Noor telefishinka Universal مدينة المنورة سعودية عربية